degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay ku taalaa dhinaca bari ee xeebta Soomaaliya magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ay u jirtaa 62 kilomitir waa magaalo xeebeed ee ku wanaagsan dhinaca dalxiiska iyo tamashlaynta dadka ku nool degmada Warshiikh ayaa waxa ay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluunka iyo xoolaha gaar ahaan idaha magaalada Warshiikh waa magaalo loo doonan jiray faafinta diinta islaamka waxa xilliyadii hore ay culimada Soomaaliyeed ay u doonan jireen barashada faafinta diinta islaamka waxaana ka aflaxay culimo Soomaaliyeed oo aad u fara badan kuwaasoo maqaam iyo magac weyn ku leh dalka Soomaaliya waxaana culimadaasi kamid ah Sheekh Daawud Ali Idris Sheekh Abdi Ali iyo Sheekh Maxamed Sheekh Abdi Ali iyo culimo kale degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa markii ugu horeysay la degay deegaan laga sameeyay 1849 waxaana deegaanka ugu horeeyay xilligaasi soo degay Sheekh Daawud Ali Idris oo soo dejiyay Sheekh Abi Bakar Mixdaar oo kamid ahaa culimadii diinta ku faafinayay xilligaasi Sheekh ayaa waxa uu ka soo haajiray sida ay sheegeen odayaasha deegaanka xilligaasi magaalada caasimadda ee Muqdisho dhibaatooyin uu kala kulmay faafinta dhinaca diinta islaamka Sheekh Abi Bakar Mixdaar oo u dhashay Arab Kisaati ayaa waxa uu 1278 halkaasi ka dhisay masjid ku yaala dhinaca xeebta badda oo ku bilaabay inuu ku faafiyo barashada diinta islaamka Allah u naxariiste Sheekh ayaa waxa uu geeriyooday 1293 wuxuuna hadda ku aasan yahay oo lagu siyaartaa masjidka dhexdiisa oo qabrigiisa ku yaalo magaca degmada Warshiikh ayaa waxa uu ku baxay sida ay sheegeen odayaasha deegaanka degmada Warshiikh waxa halkaasi ka jiray biyo la'aan oo saameeyay dadkii deganaa halkaasi waxaana 3 nin oo culimo ah oo galbeedka Soomaaliya ugu yimid faafinta diinta islaamka ayaa waxa lagu diray gumeystihii wuxuuna ku xidhay magaalada Baraawe waxa dhacday in 3daasi culimada ah ay ku dhibaatoodeen xabsiga dhexdiisa waxayna Ilaahay ka baryeen inuu Ilaahay fadligiisa uu ka saaro xabsiga waxaana Ilaahay u fududeeyay in uu ka soo baxsaday mid kamid ahaa 3dii culimo oo lagu magacaabi jiray Sheekh Muuse Ille Sheekh Isxaji Waaq iyo Sheekh Aqwaaq waxaana mid kamid ah ka soo baxsaday gacanta gumeystaha uuna soo gaaray degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa uuna ka qoday war yar oo Ilaahay ka soo burqiyay biyo dadkii ku diirsaday biyahaasi ayaa waxa ay isu sheegeen sheekha warta qoday ee laga helay biyaha magacaasi ayaa waxa uu ku baxay sidaasi waxayna dhaheen warta sheekha ayaan u socdaa magaca degmada Warshiikh ayaa waxa uu ku baxay sidaasi oo dadkii dhahay warta sheekha ayaan u socdaa ayaa degmada loo bixiyay halkan waa meel u dhow xeebta jabalada Warshiikh waxa yaala madfac uu soo tuuray xilligaasi gumeystihii markaasi ku sugnaa meel aan ka fogeyn xeebta Warshiikh isagoo doonayay inuu qabsado degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana ka sheekeynaya dhacdadaasi mid kamid ah dadka deegaanka magacayga waa Umar Sheekh Qaasim madfacaas aad u jeedid waxa la soo tuuray 1800 taariikhda markay 1800 24 Abriil ay ahayd maalintaas waxay ahayd maalin ay ciidamada Talyaaniga iyo gumeystaha ay dooneen in ay ka soo degaan xeebta degmada Warshiikh degmada Warshiikhna marka waxa joogay waxay ahayd magaalo weyn oo ganacsi shacabkii deganaa oo culimo iyo culimadii ay horkacayaan way ka dhiidhiyeen inay gumeystaha oo cagtiisa soo dhigo degmadan Warshiikh waxayna kala hortageen dagaal 24 Abriil 1890 ay ahayd waxa suura gashay in ay dilaan sarkaalkii hogaaminayay ciidankii Talyaaniga ee gumeystii Talyaaniga taas waxay noqotay Warshiikh marka goobtii ugu horeysay oo gumeystaha reer galbeedka qofkii ugu horeeyay cadaan ah lagu dilo sida aad ogtahay xilligaas ma jirin hubkan casriga ah oo ma haysan waa wateen gumeystaha ayaga laakiin markaas dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Warshiikh ma haysan hubkan oo qoryaha fudud iyo kuwa culusba kaliya waxay ku hubeysnaayeen falaaro warmo iyo dhagxaan intaasay kala hortageen
sheekh abikar sheekh maxamed sheekh axmed ayaa ka waramaya xilliga la dhisay taariikh ahaan masjidkan. waxaa la dhisay 278 muxuu caan ku yahay masjidkan مسجد التقوى عن كيحي ما شاء الله أو مساجد كان كسو تكتان واجران أو كسو تكتان واجرا صح معنا علمك حتى وحا نوعها يا مشايخ ذا الشيخ انت نقصو يمادن بركي خالي وميشان maadaama degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee ku yaala meelaha istiraatiijiyada ah ayaa waxa habboon in xilligan loo helo wado wanaagsan oo ay isaga kala gooshaan bulshada Soomaaliyeed iyo in la maalgashado ee laga sameeyo hoteelo loo dalxiis tago iyo waliba in laga wada shaqeeyo horumarka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.